kulanti wacan kuna soo dhawaada xog xasaasi ah ammaanka Villa Hargeysa ee golaha shacabka oo la wareegay iyadoo Saadaq John la xanibay dhacdooyinku waa isdaba joog waa lagu kala baxayaa garoonka rag difaaca ku jiray baa weerarka ka soo jeesanaya dhinacyo iswatay baa kala durgaya waana la isdaba jooga wali oo sirdoon baa kala shaandhaynaya kala xodasho gaartay ciidamada iyo hubka iyo isu jooxaarin ayay gaartay xaaladu warar isa soo taraya ayaa sheegaya in taliyaha hoggaanka dabagalka Niza Cabdullaahi Dheere uu fashiliyay qorshe la sheegay in ay iska kaashanayeen taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir iyo mucaaradka dawladda kaas oo ahaa in baarlamaanka Soomaaliya laga hor istaago kulankoodii maanta ay ku yeelanayeen xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa ila xogogaalaha ayaa sheegay in taliyaha dabagalka dejiyay shaxda lagu fashiliyay taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir kadib markii uu ku dhawaaqay in uu ishor istaag ku sameeyay shaqadii baarlamaanka Soomaaliya hoggaanka dabagalka oo la sheegay in uu horay ula socday dhaqdhaqaaqyada sargaalkan ayaa durba xiriir la sameeyay taliye ku-xigeenka ciidanka hoggaanka saadka ciidanka booliska gobolka Banaadir iyo taliyaasha degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo markii horeba ka tirsanaa saraakiisha qarsoon ee hoos yimaada taliyaha dabagalka arrintaas ayaana fududeysay in awoodda ciidanka lagala wareego Saadaq John taliyihii hore taliyaha dabagalka ayaa durba codsaday in xilka laga qaado Saadaq John si aanu u bixin amar qaldan arrintaas oo sababtay in xilka laga qaado Saadaq John Cabdullaahi Dheere ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyay in laga xanibo safarada waxaana la sheegay in Saadaq John loo diiday in fiiso loo saaro baasaboorka Jabuutiyaanka ah oo uu watay dhinaca kale ciidamada ilaalada shacabka ee hoostaga taliyaha dabagalka Niza Cabdullaahi Dheere ayaa la wareegay gacan ku haynta amniga xarunta baarlamaanka waxaana durba shaqadii dib u bilaabay golaha shacabka oo maanta meel mariyay muddo kordhin 2 sano ah oo ay sheegeen in dalka lagu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah